hay bal nagu warbixi bal filanka qaybtaad ka lahayd iyo sida aad maaragtay waxyaabaha aad dareemaysay markii aad jilitaanka ku guda jirtay. runtii horta filinka qaybo badan ani qayb door laadeernimo ah ku lahay oo negative ah markii ugu horeysan meesha inuu film aan jiro filmo badan hore soo jiray ogaa experience badan waa lahay marka si qurux badan aad iyo aad daadir baa isku dhinac ahaydeen waa gartay. haye maxay ahaayeen caqabadihii aad la furantay inta ay ku guda jirteen jilitaanka filimka? wallahi caqabad hadda saa'ide oo dhihi karo waa caqabadaas ay hor imaato filimka maanta ashii karo male maadaama filmo badan hore usoo sameeyey wixii muddo badan kusoo dhex jiray si fiican u aqaano way ii fududaayeen sabab inta dadka ku cusub filmada marmar qaarkood xitaa caawinaad siinaya laakiin inta kale wax caqabad ani ahaan ma iga jirin aad iyo aad film argudasho la dhaho oo gobolka hiiraan lagu sameeyey magaalada beledweyne usoo laabta filimka dambi baaris waxaa lagu arkaya adigoo bisoolad wadato hadde ninka odayga ahaa khaalid maxamuud dilra waa lisla ahaya waa gartay. haye bal filimkaasi ka warbixi bal waxyaabihii aadka kula yaabka badnaa. wallahi filimkaas qayb waxa jirto igula yaab bandeed markaa jilayay qaybtan ugu jecelahan waaye waa qaybta markii yarka samiir ee saaxiibkii la soo afduubanayo meesha lagu soo xiraayo xabadda lagu dhufanayo arto markii ugu horeysay oo qof in la soo xirxiray dilitaan lagu sameynayo ay ahayd insha Allah waana si qurux badan uga baxsanay caqabad iska jira xoogaa cabsi bar badan qofkii aad taqaano haddana wixii oo haddana shaqadii ay tahay laakiin wax saa'id ma aysan jirin.